السلام عليكم أصحابتا ku xiran jeel xirfad ku soo dhawaada muuqaal cusub halkan waxa ku soo gudbinaa xirfadaha online ka banaan kuwaas oo lacag ka sameyn karto hadii aad nagu cusub tahay nagu soo bir hadii aad hore nala joogteen muuqaalkan like saar soo gaar asxaab badan soo dhawaada muuqaalkeena maanta siin doonaa magas sigas oo asaguna ah exchange lacag dhigan karto lacagna aad kala bixi karto waa marka verification ku sameyso markaasna imika ayaan tusaya dhamaan applicationada waxa kala soo degi kartaa Android-ka iyo App Store-ka hadii aanad arkayn oo aanad halka ka weydana waxaad raaci doontaa muuqaalkan hada daawanayso qaybta description-ka ayaan soo dhigi doonaa dhamaan linkiyadooda kadibna halkaas ayaad ka geli doontaa hada halkan ayaan ku dhufanayaa marka aan ku dhufto waxaan geli doonaa application-ka marka aan galno waxaan galaynaa qaybtan ay wallet ku qoran tahay wallet marka aan ku dhufano waxaan gashanaynaa Gmail isagana Gmail-kii ayaan gelin doonaa marka Gmail-ka waa muhiim Gmail-kaasi waa inuu ahaado mid security-giisu aad kuugu adag yahay oo aad hubto waayo lacag ayaa soo dhiganaysaa hadii hadhow hackers iyo waxaasi kuugu yimaadaan si aan lacagtaada lagaaga jabsan marka soo gasho oo ku sameysmo Gmail-kaaga aad ku sameysato kadib verification ayaad leedahay isna sidii kii hore marka verification aad tiraahdo halkan ayaad imanaysaa kadib halkan marka aad timaado halkan ayaad ku sii dhufanaysaa kadib marka aad ku sii dhufato waxaad dooranaysaa wadanka aad joogto Soomaaliya ayaad halkan ka baaraysaa inay ku jirto marka Soomaaliya ayaad dooranaysaa kadib wuxuu ku leeyahay ma passport isna saddexdii shuruudood baa laga rabaa inaad haysato liisan passport iyo ID card iyo ko saddexdaas marka aad hesho hadii aad hayna qof ayaad ka soo qaadanaysaa waayo qofka marka aad ka soo qaadato waa inuu qofkiina kula joogo oo selfie-gii aan kii horeba ku sameynay aad kana ku sameysato marka aniga hadda ID card ayaan haystaa ID card-kii ayaan gashanayaa ID card-ku waa ID card Somaliland waa lagu bixiyaa Soomaaliyana waa lagu bixiyaa marka passport-ka ayuu ID card-kuna ula socdaa labaduba lagu wada siinayaa marka qofka aan haysan ID card markaan ku leeyahay waa ID card dhalasho maaha ID card jaamacadeed iyo ID card kale waa ID card dhalasho ah oo dhalasho lagu sameeyay ayaad gashanaysaa marka continue ayaan leeyahay continue marka ay raahdo waxaan leeyahay wakaas oo ku sii dhufanayaa kadib marka aan ku sii dhufto wuxuu ku leeyahay ma waxaad ku nooshahay wadamada Mareykanka iyo US marka ayaan leeyahay continue ayaan leeyahay marka halkan waxa laga rabaa labadan shuruudood shuruudda koowaad waa inaan document-kii xareeyo ID card-ka aan hayay sheegay aan ku xareeyo 2 minute halkan waa in si laga qaado marka 2 minute ayaa lagu qabtay marka continue ayaan leeyahay marka hada sawirkii ayaan ka qaadayaa isna kana sawir ayaa laga qaadayaa maadaama sawirkan ka qaaday halkan ayaan ku soo dhufanayaa document-ka ayaan ku soo markaas aan ka qaado halkaas aan ku soo dhufanayaa marka document-ka sidaas ayaan ku deyn doonaa kadib marka aan sugaynaa inta waxa arkaysaa in document-kii qaatay imikana wuxuu naga rabaa selfie marka selfie-gii ayaan iska qaadaynaa waxa arkaysaa selfie-gina naga qaaday verify inaad kaaga dhigo marka akoonkii verify weli ma noqon marka oo ku noqon doonaa hadii uu verify noqdo xagan ayaa verify ku qoran tahay laakiin waan hubinaynaa
حاجة security ayaan isagana markaa geli doonaa bal waxaan sugaynaa inta uu verify noqonayo marka verify weli ma noqon marka wuxuu 24 saac kadib oo la bixi kartaa lacagtaada 24 saac waxa la bixi kartaa lacagtaada marka verification kii marka halkan ninkaaga waa iska bedeli kartaa markaasna security ayaan ku xiri doonaa marka qaybta security ayaan tagayaa waxa aan sii tagayaa qaybta security waxaan ka baarayaa authenticator Google oo kan marka authenticator ayaan ku dhuftay waxaan si leeyahay next waayo hore ayaan la soo degay markaasna sidii oo kale koodhkan yar ayaan koobiyeysanaya waxaan tagayaa qaybta authenticator aniga oo ku qoraya magaciisa oo ahaa Megas C ayaan ku qori doonaa qaybtan ayaan imanayaa in authenticator marka wax lagu darayo ama lagu tusayo wuxuu iska dhigayaa madow marka waa shirkadda aniga maaha marka halkan ayaan ku qorayaa magaciisa oo ahaa Megas C halkan waxaan gelinayaa koodhkan soo koobiyeystay isna saasaan ugu daray oo arkaysaan in xagga hoose ayaan kaga daray marka qaybtan sida ay u shaqeyso mobile kale inaan ku dul qabto oo aan duubo mooyee ma noqonayso waayo markasta oo aan qaybtan duubayo madow ayay isku bedelaysaa marka next waxaan leeyahay maadaama qaatay waxaan leeyahay halkan geli koodhkii ayaan gelin gmail-ka ayaan gelinayaa xagana waxaan gelin doonaa authenticator-ka marka gmail-ka ayaan geli doonaa koodh la igu soo diray waa koodhkii ugu dambeeyay la soo diray koodhkan ayaan gelinayaa koodhka marka aan geliyo halkan waxaan soo qaadanayaa koodhkii authenticator-ka ayaan soo qaadayaa ee ugu dambeeyay oo kan markaan soo qaato kadib halkan ayaan gelinayaa isagana post ku leeyahay kadibna halkan ayaan submit leeyahay marka submit iraado qaybtii authenticator-ka oo arkaysaa marka hore tigimay saarnaysan gmail-ka oo kale laakiin hadda waxa ay saaran tahay tig halkan mobile verification ayaad ku samaysan kartaa lambarkaaga ayaad gelin kartaa halkan telefoontaada ama lambarada caadiga ah ayaad gelin kartaa halkan koodh baa loogu soo diri doonaa kadib isna authenticator-ka ayaad gelinaysaa inta waa security-ga waad adkaysanaysaa waa security-gaaga verification-na waxaad ku garanaysaa halkan ayaa hadda lagu soo qoray verified marka account-kana saas ayuu verified ku yahay marka isna deposit ayaa tagaysaa marka lacag ku soo shubanayso kadib waxaad tagaysaa lacagta taad soo shubanayso kolba qaybta aad soo qaadanayso BTC ba ama TRX ba ayaa tagaysaa kadib TRX marka aad tagto kadib qaybtan ayaad ku soo dhufanaysaa TRX ku qoran tahay kadib marka TRX ay ku soo dhufato weli wuxuu wadaa shaqo ayuu ka wadaa verification-kii wixii ayaan weli aad loo dhammaystirin marka waa loo eegayaa insha Allah isna saas oo select ayaad u samaysanaysaa labada application way kugu filan yihiin haddii aad tahay qof aan lacag badan ka iibsanin sidaan hore usoo sheegayna Binance ayaa ugu fiican KuCoin ayaa ku xigta labadaas hore ayaan u samaystay iyaga oo muuqaal kama duubin markii aan samaysanay KuCoin wadanka kama shaqeyso wadamada kale ayaa laga soo sameeyay laakiin Binance wadanka waa ka shaqeysaa waana application la isku halayn karo oo muddo badan jiri kara insha Allah labada application ee aan ku sameeyay muuqaalkan ku faahfaahinay waxa aad samaysan kartaa wax yar ayaad ku shuban kartaa isla markaana waad kala bixi kartaa laakiin lacag dhigasho iyo lacag maalgelin haddii aad ku samaysanayso Binance ayaa ugu fiican KuCoin ayaa ku xigta marka saas lag ayaad samaysan doontaa tan haddii aad halkan soo gaadhay waxaan ka codsanayaa muuqaalkan like saarto si uu dad badan u gaaro inta aan muuqaalka ku xiga aan ku kulmi doono waxaad iga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh